shirkii sanjarayd uu ku qabtay magaalada Qaahire ee xarunta waddanka Masar madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa ugu horreyn waxa uu tacsi u diray shacbiga Soomaaliyeed oo maalintii shalayta ahaa ku geeriyooday degmada Hodan ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ku geeriyooday risaas ay rideen ciidamada Uganda kadib markii ay qarax la beegsadeen kooxaha ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada Amisom gaari ay wateen oo maray wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho waa kan Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan oo taa ka hadlaya waxaan rabaa tacsi inaan u diro intii dagaaladaas hore ku geeriyootay dadkii ay ka dhinteen iyo intii ku shahiiday xasuuqii ay ka geysteen ciidamada Uganda degmada Hodan oo gaarayay in ka badan 100 qof oo dhimasho iyo dhaawacba xasuuqan iyo kuwii ka horreeyay oo geysteen ciidankaasu ayaa ah kuwo lagula xisaabtami doono aadna moodo falalkaas inay ka barteen ciidamadii Tigreega ayagoo xasuuqa dadka rayidka ah ku dhaqaaqa markasta oo ay kooxaha la dagaalamaya qarax u geystaan ciidamadooda kooxahaas oo aan dan ka lahayn dadka rayidka ah oo ay dhexdiisa qaraxyada ka geysanayaan sidoo kale Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu soo jeediyay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni in ciidamadiisa si degdeg ah uga baxo ciidda dalka Soomaaliya madaxweynaha Uganda Museveni oo aan isnaqaano waxaan u soo jeedinayaa inuu si degdeg ah uga baxo ciidamadiisa dalkeena dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu digay ururka midowga Afrika in ciidamadooda aysan u soo dirin dalka Soomaaliya wuxuuna sheegay inay Soomaaliya haatan u baahneen ciidamo dalka dibadiisa ka yimaada waa kan mar kale Mr. Cabdiqaasim Salaad Xasan sidoo kale ururka African Union la leeyahay waxaan uga digaynaa inuusan u soo dirsan ciidan kale dalka Soomaaliya looma baahna Soomaaliya uma baahna ciidamo Afrika iyo adduunka kale midna ka yimaada saasoo kale qaramada midoobay iyo Ban Ki-moon waxaan ku leenahay shacbiga iyagu uma baahna ciidamo xasuuqo oo dambe oo xoolo ku qaata xasuuqooda way isku filan yahay dalkiisa iyo dadkiisa ku filan ciidamo daacad u ah dalkooda na waa la helayaa waana la hayaa shacbiga Soomaaliyeed wali wuxuu xusuusan yahay oo nabarkii ku dhacay wali xanuunkiisu hayaa dadkii Soomaaliyeed oo ciidamada Tigreegu ay xasuuqeen oo ka badnaa 18,000 oo qof oo dhimashada ah iyo 52,000 oo qof oo dhaawac ah muddadii u dhaxaysay 2007 iyo 2008 xasuuq dambe oo Uganda iyo ciidan kale midna uu u geystaan u dulqaadan maayo shacbiga Soomaaliyeed meel jooga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu soo dhaweeyay madaxweynaha haatan la doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuuna sheegay inay waajibkooda ay u gutaan si waafaqsan shariicada Islaamka wuxuuna sheegay in laga sugayo dejinta barakacayaasha iyo in la dhameystiro arrimaha dib u heshiisiinta aan wali mideysnayn maamulka cusub ee madaxweynihiisu yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo lagu soo doortay Djibouti waa soo dhaweynaynaa waxaa laga sugayaa oo kale in la sii ambaqaado dib u heshiisiinta guud ee dalka iyo midda u gaarka ah kooxaha ka tirsan maxaakiimta Islaamka oo aan weli mideysnayn waxaa laga sugayaa in loo howlgalo sidii maxkamad Soomaaliyeed iyo mid adduunkaba loo soo taagi lahaa dambiilayaashii xasuuqa aadanaha ka geystay dalkeena kuwaas oo ay ugu horeeyaan George W. Bush Mel Zenawi Abdullahi Yusuf iyo dhammaantood intii ku taageertay gacantana ka geysatay xasuuqii dadweynaha Soomaaliyeed intii ka horreysay iyo muddadii ka dambeysay soo gelitaankii ciidamada Tigreega ee dalka kuwaas dhibaatada geystay oo ay ka mid ka yihiin dagaal oogayaashii 19 sano aafeeyay dalka iyo xubnaha baarlamaanku sheega oo u codeeyay in la keeno dalka ciidanka cadawga Tigreega Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa ka hadlay ciidamada Itoobiya ee soo gaaray xadka Kalabeer waxa uu yiri ciidankaas
oo aan weli ka dhammaan dalkeenna qaarkiisna ay ku sugan yihiin hadda qayb ka mid ah gobolka Hiiraan marmarsiinyo weey jamhuuriyadda Soomaaliya taaka ay leedahay soo ma gali karto hadday soo gashana waa gardaro waxay ku kala duwan yihiin xamar waa caasimadii laakiin xamar iyo kala bayr labaduba waa dal Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed baana leh Ethiopia inay soo gasho waa ku gardaran tahay inay ka baxdaa weeye inay dalkii ay muxuu ahaay joogtay iyo kii ay xoog ku haysatay haday joogayso ciduna uguma socoto halka inay joogaan weeye ugu dambeyntii Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu baaq u diray madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Sheekh Xasan Daahir Aways oo ah gudoomiyaha isbahaysiga dib u xoreynta dalka Soomaaliya garabka Asmara waxa waajib ku yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa la doortay markii horena maxaakiimta madaxdeeda ayuu ahaa oo ragii u halgamayay xoreynta dalka in laga xoreeyo Tigreega ayuu ahaa wuxuu xaq u leeyahay dadka shacbiga Soomaaliyeedna ay xaq u leeyihiin asaga iyo maamulka uu dhisayo in la siiyo waqti ay wax ku qabtaan marka ka bacdi haday wax qaban waayaan ayaa la dhigi karaa wax ma qaban haday wax qabtaanna markaas la loo muxuu la taageeri karaa laakiin in laga horgeeyo ma rabno iyo ima cuntanto waa midii qabqablayaasha dagaalka kale ma qabo waxaan qabaa cidii khilaaf ka dhaxeeyo oo ay suurowdo raggaas ama Eritrea jooga ama maxaakiimta gudaha joogta laftigooda hadalka sidaan u yiri in inta la sameeyo sida diinta islaamku nafarayso sida quraanka ilaahay nafarayo sida xadiiska rasuulku nafarayo inta la isu tago in la isu tanaasulo oo danta ummadda Soomaaliyeed laga hormariyo danta shakhsiga iyo hebel baan jecelahay iyo hebel baan nacaba laga bilaabo Sheekh Shariif Sheekh Xasan Daahir Aways dhammaantood inay sidaas ku dhaqaaqaan ayagoo culimmadii sidii diintu rabto oo quraankeenu rabo oo xadiiskeenu rabo in la isu tanaasulo la heshiiyo gacmaha la isqabsado cadawga dalka laga ilaaliyo ummadda la mideeyo dhibaatadii dadkii gaartay laga dhayo oo taas oo qaadan doonta siniin badan yaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya isla markaana loo jeedinayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee lagu caleemo saaray dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo talooyin aad u fara badan ay ka soo yeerayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan kuwaas oo dhamaantood ku wada socda Sheekh Shariif Sheekh Axmed taas oo ay maalintii shalayta ahaan ay barnaamijyo laga soo horjeedo madaxweynaha cusub ee ka dhaceen magaalada Baydhabo ee gobolka Baay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa looga fadhiyay inuu wada kulamo la yeesho mucaaradka ka soo horjeeda dhammaan xukuumaddiisa kuwaas oo ku kala sugan Asmara iyo qaar ka tirsan oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolooyinka dalka Soomaaliya oo dhammaan uu ka kooban yahay Mahad Carab oo Cali telefishinka Universal Al Qaahira